ummadda Soomaaliyeed ee fiirsanaysa hadii aanu nahay culimadii dalka waxaan ilaahay uga baryaynaa tawfiiq maslaxo dawladnimo midnimo waxaan madaxda hadda shirsan ku bogaadinaynaa shirkooda waxaan garab taaganahay wanaaga ay wadaan waxaan u hambalyeeynaa ra'iisul wasaaraha dalka waxaan ku dhiirigelinaynaa in uu arintaas oo u istaagay shirka oo ku baaqay madaxda isugu timid in ilaahay dartiis ayuka u qabanaya alla ku guuleeyo ugu duceeyna waxaan ku dhiirigelinaynaa in shirka aan lagu kala kicin iyadoon guul ummadda Soomaaliyeed ay ku farxado iyo dawladnimo iyo midnimo iyo dib u heshiisiin dhaba aysan ka soo bixin si degdeg ah inuu ugu dhamaado tawfiiqna ugu dhamaado heshiis dhab ah ee dhammaan waxyaabaha la isku haystaa laga gaaro la isu tanaazulo dalka loo turo dadka loo turo dawladnimada loo turo xaaladda amarayna la fiiriyo dhammaan waxa uu xambaarsan yahay bayaanka culimada lagu wada fikiro ayaan rajaynaa waxaanu leenahay oo si gaar ah hoosta uga xariiqayna in ilaahay wuxuu quraankiisa ku amraya sida aad maqlayseen إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هذا الكلام أسوء اسك أمر هاي هذا الإله وحوليه أسوء تأكيدنا أولما نون توكيد إن أدوجدين إن قلنا إن الله جملة اسمية هي إنه يكل الاسكود دردك اللغة العربية غان سفي عنه يغاني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى وحفرها عدلي عدالة وفرا عدالة دفتها تحضر وحكوسي فرها إحسان تطوي إن إسو سما فلان إن إسو تران إن ليسو تنزل ولا ليال مسؤولية ذات هيسين دمان ومدى ويسان وحاين قرب تاغن وعلماء الصوماليات وحاين قرب تاغن تإناه شيسان waxay inku garab taagan tahay in mas'uuliyadiina gudataan waxay inku ka garab taagan tahay in aad dalka badbaadisaan ducadayna leedihiin Allah idin badbaadiyo adin leenahay dalkana dawlad adag Allah siiyaan leenahay cadawga Soomaaliyeed hajabo walaalayaal sabab noogu naqanina in cadawayna nagu farxo oo aad kala tagtaan in cadawayna oo nagu farxo oo dawlad la'aan naqano in cadawayna nagu farxo oo aan dib dadka Soomaaliyeed dib oo u laabto intaas ka fikir aan leeyahay waa mahadsantihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh